cisbitaalada dalka Afghanistan ayaa laga baqayaa inay xidhmaan kadib markii ay dalkaasi la wareegeen kooxda Taliban bishii la soo dhaafay. Tani ayaa ka dambeysay markii ay istaageen inta badan mucaawinadii la siin jiray cisbitaaladaasi, iyadoo looga baqayo inay xidhmaan sababo ay ka mid yihiin dawooyinka oo yaraaday iyo sidoo kale in cisbitaalada qaybo ka mid ah laga waayay oksijiinta ama qalabka lagu xidho qofka ay neeftu ku yar tahay ama ay ku istaagto. Sidoo kale waxaa sii xumaanaysa xaaladda koronaha ee dalkaasi, iyadoo in ka badan 3 milyan iyo badh dadka ku nool Afghanistan ay ku barakaceen dalka gudihiisa isla mar ahaantaasina ay isugu tageen xiriir qaxoonti oo loo sameeyay. Hay'adda qaramada midoobay ee u qaabilsan caafimaadka ee loo soo gaabiyo WHO ayaa sheegaysa in laga baqayo inay xaaladdu ka sii xumaato intani haddii aanay dowladaha caalamku u ogolaanin hay'adaha taageeri jiray cisbitaalada dalka Afghanistan in la siiyo taageerada lagama maarmaanka ah. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka shaqeeya gudaha caasimadda Kabul ee Afghanistan waxay sheegayaan in markii aanay Taliban xukunka la wareegin ay haysteen dawooyin ku filan iyagoo soo iibsan jiray markasta oo ay dawadu yaraato, balse hadda ay xaaladdu tahay in la isticmaalo dawadii kaydka ahayd oo kaliya, taasi oo kala bar shacabka ku jira cisbitaaladaasi ay khatar ugu jiraan inay dhintaan iyada oo ay u dhimanayaan dawo la'aan iyo sidoo kale aaladaha lagama maarmaanka ah sida isticmaalka oksijiinta iyo wixii la midka ah. Hay'addu waxay caalamka ugu baaqaysaa in sida ugu dhaqsaha badan loola soo gaadho taakulo isugu jirta dawooyin iyo qalabka lagama maarmaanka ah ee lagaga shaqeeya cisbitaalada, haddii kale ay ka dhici doonto dhibaato aan laga soo kabanin. Taliban ayaa ballan qaaday markii ay xukunka la wareegtay inay kafayn doonto dhammaan baahiyaha shacabka reer Afghanistan, balse ilaa hadda ma jirto wax ay ka qabatay arrintaasi. Yoon Sadarxmaan, RIL TV.